بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام دمان وحنا يارتا سو دوادا maanta waxaan dhiganaynaa 10kii shanaad ee chapterka electronics waxaan hore u soo qaadanay 10kii afraad 10kii afraad waxaan ku soo dhiganay wixii la oranayay NP junction junction kaas waxa ka sameysmayay junctionka device ama smallest device ama smallest semiconductor device qalabka ugu yar ee semiconductor ee la adeegsado oo la oranayay loo yaqaanay diode-ka waxaan ku qeexnay waxaan waa device ama qalab current uu mari karo one direction hal dhinac uu mari karo markii lagu xirayo circuit la gelinayo ama circuit lagu xirayo diode-ka laba hab loo xiriyay inuu yahay forward biased ama waxa weeye in hore loo xiro ama in loo xiro waxa la yiraahdo reverse biased markuu yahay forward biased waxaan waxa weeye waa in la isku xiraa positive terminalka uu leeyahay diode-ka iyo positive terminalka uu leeyahay battery waa in la isku xiraa negative terminalka oo cathode-ka uu leeyahay diode-ka iyo waa in la isku xiraa negative terminalka battery marka current hore u maraya waxa weeye wuxuu noqonayaa waxa weeye qaabka loo xirina waxa noqonaysaa forward biased noqonaya oo current uu mari karaa conventional current-gii wuxuu ka tagayaa from positive to the negative terminal uu mari karaya laakiin haddii loo xiro waxa la yiraahdo diode-ka reverse biased oo reverse biased waxa la jeedaa in la isweydaariyo tusaale positive terminalka battery-ga negative terminalka diode-ka lagu xiro negative terminalka battery-ga lagu xiro positive terminalka diode-ka marka waxa dhacaya no current flow oo current ku sameynaya waxa way blockade ku sameynaya ama uu xannibaya current uu mari karayo maanta waxaan dhiganaynaa marka 10keena shanaad waxaan ku qaadan doonaa applicationska ama adeegyada leeyahay waxa la yiraahdo diode ama application of diode oo qalabka yar ee diode-ka waa electronic device-ka waxa loo adeegsadaa dhammaan wuxuu ku jiraa deviceska ama qalabyada loo adeegsado korontada ku shaqeeya sida mobileska computerada raadiyada iyo wixii la mid ah waxa ku jira diode marka diode-kaas uu leeyahay qalabkaas many applications leeyahay adeegsiyo badan adeegsiyadan qaadanayna waxa kamid ah applications ku leeyahay waxa loo isticmaalaa waxa la yiraahdo protecting equipment in lagu difaaco ama lagu ilaaliyo qalabka marka la leeyahay protecting equipment ama la leeyahay qalabka lagu difaacayo si lagu difaacayo waxa qalabka lagu difaacayo waxa weeye saynu soo sheegnay waxa la yiraahdo diode current ku mari kara one direction oo hal dhinac buu socon karaa current laba dhinac buu socon karo marka waxa lagu difaacaa qalabka qaarkood oo la diidayo inuu current uu gadaal ku soo noqdo tusaale ahaan waxa kamid ah qalabka loo adeegsado recorder hore ama radio-ga loo adeegsadaa waxa kale oo kamid ah waxa weeye computerska waxa kamid ah mobileska dhamaantood waxay leeyihiin diode ba ku jira ama ay ku shaqeynayaan diode-kaas wuxuu ka difaacayaa inuu current-gu dib u laabto ama gadaal u soo noqdo uu ka difaacay oo current-gu hadduu hal dhinac u maro ama one direction uu maro waxa la diidayaa inuu mar labaad dhankii gadaal ugu soo noqdo marka diode ba ku jira diode-kaas wuxuu diidi doonaa ama difaacaya in shayga current-gu u maro waxa weeye reverse uu maro gadaal ugu soo noqdo tusaale waa kan markaynu ka soo qaadno circuit-kan ka soo qaadanay ku xiran tahay radio oo kale ama waxa weeye record radio marka ka soo qaado halka waxa ku xiran waxa weeye waa battery-gii circuit-ka dhinacan waxa ka xiran diode-ka current ku mari kara si hore u soo sheegnay direction-ka ay falartiisa u jeedo ama arrow u jeedo uu current ku mari kara hadduu current uu laakiin dhinacan opposite-ka ka yimaado wuxuu ku sameynaya blockade ama uu cesha current-ga marka halkan waxa ku xiran circuit-ka ku shaqeynaya tusaale ahaan radio-ga ku shaqeynaya markii aan battery-ga radio-ga gasho ama dhagaxaanta radio-ga gasho waxaan u xiray dhanka positive terminalka battery-ga
wuxuu ku xirayaa positive terminalka ama anode-ka wuxuu ku xirayaa waxa weeye diode-ka dhanka negative terminalka ana wuxuu ku xirayaa negative terminalka waxa weeye diode-ka ku xiraya marka muxuu xiran yahay forward biased way forward biased oo current waa conventional current oo direction ka soo gaan jiray from positive terminal wuxuu tagi jiray to the negative terminal dhinaca ka soo wareegay marka wuxuu xirayaa forward biased current can flow laakiin ka waran hadii batteriga kan aan kala rogo oo aan dhanka opposite-ka u jeediyo dhankan xagga u jeeda aan xagga dama u jeediyo ee aan kala wareejiyo waxa dhici doona in current-giina jihadiisu isbedesho oo current-ku ka yimaado dhinacan ka soo wareego current-ku hadduu dhinacan ka soo wareego diode-ku ma ogolaanayo inuu current-ku gudbo ma ogolaanayo wuxuu diidayaa current-gan hadduu batteriga la kala wareejiyo inuu gadaal u soo noqdo wuu diidayaa marka wuxuu u mari karaa kaliya only forward laakiin uma soo mari karo backward marka muxuu samaynayaa wuxuu difaacayaa in shaygii ama qalabkii uu current-ku gadaal u soo noqdo horey buu u maray gadaal uma soo noqon karo ama haddii radioga ama tusaalahaan wax ka mid ah shayadaas oo kale torchka oo kale haddii radioga raadiyadii hore la isticmaali jiray waxaa loo isticmaali jiray in laga soo batteriga waxaa jiray qaab loo geliyo qaab loo arrange gareeyo loo geliyo baa jiray qaabka loo arrange gareeyna waxay ahaayeen waxa weeye dhanka positive-ka ah dhan baa loo wada jeedinaya batteriyada dhan haday hal yihiin hal batteri laba batteri saddex batteri afar batteri hal dhinac baa loo wada jeedinaya oo lama kala jeedin karo dhanka loo jeediyana waa dhan go'an baa loo jeedin karaa hal dhinac baa loo jeedin karaa dhinacaas markii loo jeediyaa record ku shaqeynaya laakiin haddii aan recordkayga aan batterigiisa kala jeediyo ama kala wareejiyo ma shaqeynayo sababtoo ah wuxuu u shaqeyn waaya waxa ku jira qalabka yar ee diode-ka ah ee ogolaanaya current-ku inuu only u maro forward laakiin uu soo marin waxa weeye backward ama reversal uu soo marin gadaal uu soo noqon current-ku deviceska marka la isticmaalayo radioga waxa jirta markii la rabo radioga inaan la shidin ama aysan ciyaalkii ku ciyaarin waxa la sameyn jiray batteriyada tan baa wax lagu sameyn jiray waxa weeye la kala wareejinayo oo dhinacii saxda ah mooyaane dhinaca kale loo jeedinayo kadibna ma shaqeynayo si kastoo loo daaro ma shaqeynayo sababtoo ah waxa difaacaya inuu current-ku gadaal u soo noqdo ama wrong way uu galo waxa difaacaya waxa weeye wax la yiraahdo diode-ka marka diode-ku only wuxuu ogolaanayaa current-ku markuu batteriyadu arrange gareysan yihiin habka ah in diode-ka positive-kiisa iyo positive terminalka batteriga la isku xiro negative-kiisa iyo negative-ka batteriga la isku xiro markaas uu shaqeynaya laakiin haddii batterigan uu kala wareego waxa weeye ma shaqeynayo wax current-iya ma marayaan wuxuuna difaacaya inay damage gaarto haddii current-ku dhankii opposite-ka uu ka soo maro xagga ka soo wareego waxa laga yaabaa inuu radioga damage gaaro marka uma ogolaanayo diode-ka wax difaacaya ee protective u sameynaya wax la yiraahdo battery radioga wax difaacaya wax la yiraahdo diode-ka halka mal akhri marka waxa la yiri diodes are used to protect diodeska waxa loo isticmaalaa lagu difaaco radioiska radioga caadiga ama recordadii waxa kamid ah sidoo kale computers iyo computerada which would be damaged if a battery or power supply hadii uu dhaawacmayo ama dhaawac gaarayo hadii batteriga ama power supply-gi was connected in a wrong way hadii si qaab qaldan loogu xiro oo batterigan hadii la kala wareejiyo qaab wareegsan loo geliyo recordada wala wax la gelin jiray batteriga hadii qaab qaldan loo geliyo current-gaasu ma soconayo sababtoo ah waxa difaacaya protect ku sameynaya diidaya inuu gadaal u soo noqdo current-gu diode-ka sidoo kale hadii supply-ga loogu xiro computer-ka si qaldan loogu xiro waxa difaacayo gudihiisa ku jira oo diidaya inuu current gadaal noqdo wax la yiraahdo diode-ka waxa diidaya maxaa weeye diode-kaas diidaya marka diode-ku meesha wuxuu ugu jiraa doorkiisu waxa weeye protecting inuu difaaco shayga in current-gu wrong way u maro that battery should be arranged in a right way around waa inay batterigu u habaysan yahay ugu jira qaabka saxdana waxa weeye in positive terminalka batteriga loo jeediyo dhanka diode-ka positive terminalkiisa negative terminalka batterigana loo jeediyo negative terminalka waxa weeye diode-ka si ay u noqoto forward biased haddii marka si qaldan loo geliyo ka rogan sidii oo la kala rogo the other ways no current flow wax current oo maraya ma jiraan marka wax dhaawac oo gaaraya haddii current marayna uusan jirin reversal current-ina wax damage oo gaaraya computerska ama radioiska ma jiraan marka waxa loo isticmaali karaa diode-ka in loo isticmaalo protecting
applicationka labaad uu leeyahay waxa la yiraahdo diode-ku waxa loo isticmaalaa in lagu daaro switching in a standby battery in lagu daaro bateriyada diyaarka ah maxaa loola jeedaa waxa jira deviceska qaarkood ama qalabka qaarkood loo isticmaali karaa in la haysto bateriyo diyaar ah bateriyo diyaarku waxa weeye bateriyo markii on laga dhigo ama shaqadooda la daaro ama la bilaabo on laga dhigo shaqaynaya markii off laga dhigana off ahaanaya marka waxa la yiraahdaa standby battery waxay ku jiraan markasta waxa weeye waa diyaar waxay diyaar u yihiin inay shaqeeyaan standby batteries ka badanaa wax ku shaqeeya oo kamid ah qalabka ku shaqeeya waxa la yiraahdo B-cycle tusaale B-cycle-ka oo ah baaskiilka wuxuu leeyahay circuit-ka marka eegtid wuxuu leeyahay daynabadaas dhinacan ay ku xiran tahay halkana waxa ku xiran diode halkana waxa ku xiran guluubkii ama laambadii halkana waxa ku xiran diode xagana waxa ku xiran battery baa ku xiran batteryga xaga ku xiran iyo daynabadaasu labada wax u shaqeynaya qaab mutual ama isdhinacayaan loo shaqeynaya oo markay daynabadu shaqeynaysana batterygu uu dansan yahay markii daynabadu dantana isla markii batteryga diyaar oo daarmaya waa sababta lagu bixiyay switching in a standby battery diyaar wax loo leeyahay sababta batterygan wuxuu diyaar u yahay markay daynabadaas go'do inuu marka isagu daarmo daynabadu marka maxay ku shaqeynaysaa B-cycle wuxuu leeyahay laambad loogu talagalay qofku habeenkii ama xilliyada habeenkii inuu ku socdo marka laambadaasu waxay ku shaqeysaa daynabadaas waxay ku xiran tahay tire-ka ku xiran tahay qaabka u shaqeynaysana wax ku soo aragnay electromagnetic induction-kii marka daynabadaasu waxay ku xiran tahay motion-ka tire-ka ku xiran tahay motion-ka B-cycle-ka markii uu soconayo current-ga daynabada soo deyso wuxuu mari doonaa dhinacan ka soo wareegaya dhinacan markuu ka soo wareego kan muxuu yahay waa forward bias oo sidii saxda ahayd buu xiran yahay oo current-gu horay buu mari karaa dhanka fallaarta markaas uu jeedoba waa dhanka ogol inuu current-gu maro diode-ka duu current-gu dhanka ka yimaado oo fallaarta xaggeeda u jeedo dhanka diode-ka fallaartiisa u jeedo waa dhanku ogol yahay inuu current-gu maro current-gu dhanka u mari doonaa current-ga halkan maraya uma gudbi karo dhinaca kale uma gudbi karo sababtoo kana wuxuu ku sameeyaa blockade diode-kana celinaya ma gudbayo marka hadduu diode-ku markuu celinayo kadibna wuxuu mari doonaa maxaa weeye wuxuu soo geli doonaa waxa la yiraahdo batterygaas uu gelaya wuxuu galayaa laambada marka waa shilmaysa laambada marka maxaa shidaya waa intuu soconayo B-cycle-ku waxa shidaya daynabadaasu dhankani current-ka ka soo wareegaya diode kala ku xiran waa forward bias current waa madi karaa laambadu waa shidan tahay laambada markay shidan tahay waxa way wax ka shaqeysanaya daynabada markuu istaago B-cycle-ku hadduu socodka joojiyo daynabadaasu dee waa tegaysaa daynabadu ma shaqeynayso waxa weeye daynabadaasu ma shaqeyn karayso daynabadu markay danto oo shaqadeeda gabto waxa soo daarmi doona oo current-ku ka imaan doona diyaar ah batterygan current-ka ka yimaado wuxuu soo mari doonaa halkan uu marayaa kan muxuu ku yahay marka positive-ka ka yimaado positive terminalka batteryga iyo positive terminalka diode-ku isku xiran yihiin waa forward bias current-gu dhana kan u soo mari karaa kadibna laambadu waa shidmaysaa laambadu marka marna dami mayso markuu istaagona waxa weeye daynabadu tagtana waxa shidi doona batteryga oo standby ugu jira markii batterygu B-cycle-ka dhaqaajiyona batterygu waa damaya waxa shaqeyn doona maxaa weeye daynabada oo batteryga maxaa daminaya marka batteryga wax daminaya waxa weeye daynabada tan voltage-ka soo saarayso markasta wuxuu ka badan yahay voltage-ka uu batterygu soo saarayo waxa voltage badan daynabada markii labadu ay wada shaqeynayaan waxa xoog weyn oo shaqada qabsanaysa daynabada oo markii B-cycle ku soconayo batterygana meesha waa ku xiran yahay daynabada waa ku xiran tahay laakiin waxa shaqada qabsanaya daynabada sababta labada voltage markay iska hor yimaadaan waxa xoog weyn voltage-ka daynabada kadibna laambada waxa shidaya waa daynabada marka daynabada B-cycle-ka la istaajiyana waxa rabaa inuu laambada wali si shidnaato standby waxa ugu jira gadaal u shaqeyn doona waxa weeye waxa la yiraahdo batteryga waxana keenaya inuu batterygan markii kan la damiyo oo batterygu shaqeeyo waxa weeye waxa ku xiran labadaba ku jira waxa weeye diode-kaas waa kan this is a circuit that could be used in B-cycle waa circuit laga dhex isticmaali karo waxa la yiraahdo B-cycle-ka loo isticmaalaa when the B-cycle is in a motion
markuu soconayo the dynamo produce large voltage then battery waxay soo saari doontaa voltagekaas oo ka badan maxaa weeye kii batteriga and lights up waxayna shidi doontaa the lamp using left hand circuit laba circuit weeye circuitkana waa dhammaystiraya that's a complete circuit waxaa la odhan doonaa waa left hand circuit waa circuitka dhanka bidix xigta circuitkan kale ma shaqaynayso markaa maxaa lagu samaynayaa waxa circuitka shaqaynaysa waa left hand circuit only saving batteryga waa la save garanaya waa intuu bahalku soconayo so batteryga uu isan dhaqso iga dhammaan waa inaan markaan soconayo dynamada isticmaalo when a p cycle become resty markuu istaago the dynamo will no longer larger supply voltage wax voltage ma soo saari doonto voltage haddii soo saareen the right circuitka battery ku xiga will light up the lamp laambada iyada shidi doonta oo current dhinaca ka imanaya waxa la yiraahdaa switching standby battery applicationka saddexaad ama useska saddexaad ee leedahay waxa la yiraahdo diodeska loo isticmaalo waxa la yiraahdaa rectification erga rectification Soomaaliya waxa la yiraahdaa qumin ama toosin oo quminta ama toosintaas wax kala ma aha waxaynu naqaanaa waxaa jira laba current ay soo saaraan supplies current waxa la oran jiray DC current wax soo saara batteries ka badana current waxa la oran jiray alternate current ama wax la yiraahdo AC current waxa soo saara jiray badana generators marka labada current waa la isku bedeli karaa iyadoo la isticmaalayo diode waa wax lagu sameyn karo wax la yiraahdo rectification in la qumiyeeyo ama la toosiyo badana current ugu badan ay isticmaalno supplies ku soo saaraan ama soo saara generators ku alternate current waxa loo bedelayaa oo ah AC current waxa loo yiri marka waa current change in direction jihooyinku bedelaya waa current waxa la yiraahdaa maayadka talantaaliga waxa loo bedeli doonaa to direct current maayad toosan ama quman baa loo bedelayaa maayada quman waxa loo soo gaabiyaa DC current marka DC current markii laga bedelayo alternate current loo bedelayo DC current process lagu bedelayo ama habka lagu bedelayo waxa la yiraahdaa rectification ama waxa la yiraahdaa qumin in la toosiyo alternate current waa current u soconaya up and down u soconaya wave u sameeyaa up and down u soconaya mar hadduu up and down u soconayo waa in la toosiyaa oo laga dhigaa into direct marka direct laga dhigayo waxa la isticmaali doonaa processkaas la mari doonaa rectification marka is a process in which alternate current convert loogu rogi karo to direct current iyadoo la isticmaalayo diodes waxa la diodes can be used to change diode waxa loo isticmaalaa in lagu bedelo AC current oo alternate current lagu bedelo to DC current process kana waxa la yiraahdaa this process is called rectification process habka waxa la yiraahdaa rectification process diodeska la isticmaalayo waxa la yiraahdaa magac baa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa rectifiers qumiye ama bedele waa qumiye processku waa qumin qalabka diode la isticmaalayo toosinayana oo rectifier kana waa qumiye marka diodes that do it diodeska rectification ka sameynaya makiinaya are known as waxa loo yaqaan rectifier ama rectifiers ka waxa la yiraahdaa Soomaalihan qumiye waa kan toosinaya rectification ka waxa loo qaybiyaa tapes bay leedahay laba tape waxa la yiraahdaa tapes of rectification tapeska rectification ka ama quminta qaab laba tape loo qaybin doonaa waxa loo qaybin doonaa tape ka koowaad oo ah waxa la yiraahdo half wave rectification in la bedelo half wave kala bar in la bedelo oo AC current wuxuu sameeyaa form of wave badana wuxuu sameeyaa form of wave oo ah inuu up and down u soconayo current marka qaab wave u sameeyaa rectification ka marka la half wave ka la sameynayo waa in la bedelo wave-kii half wave na in la bedelo DC laga dhigo half wave na sidii waa ahaado marka half wave rectification la yiraahdaa marka kala isticmaalayo qaabka labaadna ama processka labaad rectification ka waxa la yiraahdaa waa kan full wave rectification in dhammaan wave-kii oo dhan lagu sameeyo rectified la wada bedelo ama dhammaantii wave-ka la wada bedelo waxaan ku horeyn doonaa waxa la yiraahdo half wave rectification sida half wave rectification loo sameyn karo ama kala bar loo bedeli karo lagu sameyn karo change marka half wave rectification la sameynayo tusaale ahaan waa kan circuit-kan baalkan ku sawiran circuit-kan wuxuu leeyahay input current waa AC current
input current waa AC current AC current-gana waxa lagu yaqaanaa badanaa wuxuu sameeyaa form of wave sida wave-kii diilinta toosan waxa loo yaqaanaa wuxuu taagan tahay time taking waa time-kii diilinta toosan way taagan tahay time taking kana wuxuu taagan tahay current-gii laakiin direction of current-gii way u taagan tahay waa AC current-gii uu taagan yahay qaabka wave-ku sameeyay marka qaybta waxa la yiraahdaa markii up loo socdo waxa loo qaataa positive ama forward current markuu hore u socdo that's a positive dhanka waxa la oran doonaa waa positive marka muxuu u socdaa hore buu socdaa increasing maximum value uu gaaraya kadibna wuxuu sameyn doonaa decreasing minimum value kadibna markuu soo sameeyay marka forward-ka uu dhamaaday kana waa backward-kii markuu current uu gadaal noqonayo waa kan backward-kii markuu current uu gadaal noqonayo that's a backward decreasing waa increasing dhanka kale opposite-ka wuxuu gaaray maximum kadibna decreasing to the zero marka waa full wave intaas waxay noqonaysaa kan waa half wave kana waa another half wave way noqonaysaa full wave kana wuxuu noqon doonaa another half wave kana wuxuu noqon doonaa another half wave diagram halkan ku muuqda waa two waves waa laba wave waxa la yiraahdaa alternate current marna wuxuu socdaa forward waa ka positive ka upward ka qaybta korka aaday ee kor u soconaysa increasing bay u jeedaan maximum value uu gaarayo kana waxa uu jeedaa minimum value laakiin maxay tahay wave-ka marka la sameeyo opposite direction baa loo jeedaa kana waa forward current wuxuu soo noqonayaa backward misana wuxuu socon doonaa forward misana wuxuu socon doonaa backward waa kan diagramki waa kan AC current-ga ama supply-ga AC current-ga halkana waxa ku xiran resistor-kii waa qalabka la isticmaalayo oo la raba current-ku maro marka halkan current-ga maraya waxa laga rabaa hadhow inuu noqdo current wuxuu yahay DC current lagu sameeyo rectification lagu sameeyay wali laakiin maxaa lagu sameeyaa waa half wave rectification output-ka inoo soo bixi doona halkan ka muuqan doona waa kan inoo soo baxaya current marka koowaad wuxuu socon doonaa halkan ka bilaabaya that's a positive waa forward that's a forward hore buu socdaa then diode-ku markan wuxuu yahay waa forward bicycle oo direction of current ku dhanka uu mari karaa current ku halkan uu soo maray waa soo wareegay diode resistor-kii hal direction buu raacay dhankan uu raacay xag uu noqday waa soo wareegay dhinaca tagay dhinacaas waxa la yiraahdaa that's a forward oo dhanka markan wave-ka sawirayo intaas oo dhan waxay u taagan tahay that's a half wave-kaas wuxuu taagan yahay kan madar bujiyo ah half forward-ka uu taagan yahay hore inuu socdo current uu taagan yahay markuu current uu dhinacan tago oo dhinacan u soo gudbo markii current uu dhinacan tago wuxuu soo sameyn doonaa backward gadaal buu soo noqonayaa dhinacan ka soo bilaabaya misana ilaa waa forward and backward dhinacan ka soo bilaabi doonaa waa backward dhinacan ka soo bilowday halka markuu marayay maxaa ka hor yimi waxa blocker ku sameynaya uu ka hor yimi uu yahay reverse bicycle isku yihiin current-ku dhana kan u socdaa xag u jeedaa dhana kana waa dhankii diode-ku uu ka sameyn jiray blockage-ka ama uu ka ahaa reverse bicycle uu ka celin jiray current-ku dhinaca uma mari karo therefore current-gii soo noqon lahaa ee dhinaca kale u wareegi lahaa uu joogsanayaa marka wave-kan halka ku sawiran half wave-kan hore waa forward half wave-kan dambe waa backward kan misana muxuu noqon doonaa back forward misana kan dambe muxuu yahay backward kadibna markii current-ku xaggan ka maro waa markuu input-ka ahaa weeye markuu satan u muuqdo waa input-kii output-ka soo bixi doona wuxuu noqon doonaa current-ku inuu socon doono hal direction uu soconayo oo ah forward maxaana muuqan doonaa waxa muuqan doonaa forward-ka half wave-ka muxuu yahay forward-ka kan hore waa muuqan doona kan dambe ee backward-ka ee soo noqodka waa baabi doona only labada forward-ka waa muuqan doona labada backward-kana waa baabaya bal eeg diagram-ka dambe output-ka current-ga maraya resistor-ka only wuxuu u socdaa forward dhinacan uu soo maraya dhinacan uu soo wareegaya dhanka markuu tago dhinaca gaaro dee waa soo noqday backward-ka weeye backward-ka maxaa celinaya inuu noqdo waxa celinaya diode-ka marka backward ma jiro only waxa jira maxaa weeye forward-kuna waa dhanka positive-ka ah ee half wave-ka sare then diagram-ku waxa soo bixi doona current markuu forward u socdo dhinaca backward-ka ma jiro waa baabay waxa ku lagu sameeyay maxaa weeye rectify waa ka toosay oo dhanka backward-ka ma jirayso backward haduusan jirin macnaheedu maxay tahay wave-ka half waa maqan complete wave bay ahayd forward then backward bay ahayd forward-ka waa muuqda backward-ka waa baabay misana forward-ka waa muuqda another wave-ka kale
backward waa baaba forward ka muuqanaya backward waa baaba isaas ku soconaysa marka maxaa lagu sameeyay half wave baa la tirtiray marka waxa la yiraahdaa half wave rectification ka half wave ka kan forward ka uu dhankan waa forward bicycle waa u soconaya laakiin maxaa jiri doonin backward ka ma jiri doono waxaan jiri doonaa maxaa weeye backward ka ma jiri doono gadaal ma soo noqdo marka we half wave ku inta kor u jeeda kor aadaysa increasing ka ama maximum value ka kor aadaysa waa forward ki inta dambe go'aysa waa half wave kiya marka maxaa lagu sameeyay half wave rectification half wave ala baabiyo DC loo bedelay oo half wave kaas maxaa ku dhacay into DC uu soo bedelay waxa toosmay into DC marka waxa la simple rectifier waa ka circuit kan waa circuit rectifier is shown below diagram kan tusinayo the diode lets a forward part of the AC current wuxuu ogolaan doonaa waxa weeye waxa la yiraahdo diode kan wuxuu ogolaan doonaa inuu current u maro waxa weeye forward xagga hore inuu maro sababta direction kan waa direction ku ahaa forward bicycle dhanka arrow current uu gudbi karaa dhinaca kan diinintan dheerna waxay dhanka blockerka oo current uu haduu dhinacan ka yimaado ma mari karayo laakiin haduu dhinacan ka yimaado uu mari karayo marka dhanka markuu yimaado waa joogsan laakiin muxuu ogolaanayaa forward part-ga current through but blocks wuxuu xiri doonaa backward part qaybta dambe so the current through resistor flows one way only current-ga resistor kan output ka maraya only wuxuu socon doonaa this direction xag u soo maraya marka half wave baa muuqanaya output ka waxa soo baxaya half wave baa muuqda oo wali sii jira half wave na wala baabiyo rectifier baa lagu sameeyay wala tirtiro into DC waa loo bedelay half wave ka muuqda waa half wave ka forward ka kii backward kana ma muuqanayo qaybta labaad waxa la oran doonaa waa full wave rectification dhammaan in wave kii oo dhan la wada bedelo rectification lagu sameeyo marka half wave rectification ka waxa isticmaalaya only one diode hal diode baa la isticmaalay ka waxa loo isticmaali doonaa maxaa weeye laba diode baa la isticmaalay waxa la isticmaali doonaa afar diode sidoo kale sometimes wax la yaqaan bridge rectifier waa kaabad qumiyayaal ama bedelayaal bridge waa kaabad ama wax la yiraahdo waxa weeye buundo marka buundo waxa lagu soo qaatay waa bridge isku xiran oo waxay rectifier kaas waa bridge kaas wuxuu keenayaa inuu current-ga uu ku dhaco full wave rectification la sameeyo kan diagram-kan hoose eeg diagram-kan hoose waxa la isticmaali doonaa markaan kan sameeyno afar diode baa la isticmaalaya in a form of rectangle buu xiran yahay laakiin rectangle kan qaabku u samaysan yahay sidii rectangle ka sax ma aha wuxuu samaysan yahay sidii wixii la oran jiray maxaa weeye rhombus buu samaysan yahay waa afar resistor afar diode kan waa diode waxa la yiraahdaa diode A diode B diode C diode D afarta diode for diodes kas halakan waa input ka meesha ka soo galaya input current-gi waa AC current oo current-ga soo galaya muxuu yahay markastaba waa AC current-ga soo galaya waa AC current-ga ka soo galaya waa AC current-ga maxaa lagu muujiyaa form of wave kan waa forward then backward then forward then backward dhamaantood waxa lagu sameyn doonaa rectifier baa lagu sameyn doonaa oo waxa laga wada dhigi doonaa into DC baa loo wada bedelayaa dhamaantood loo wada bedelayaa ama forward ha aado kan dhankan waa forward kana waa backward kaas waa full wave kana waa another full wave labada full wave waa la bedeli doonaa output-ka waxa noo soo bixi doonaa mid toosan baa noo soo bixi doonaa markii uu la isticmaalo oo output-ka xagee ka muuqan doonaa resistor kan waa inuu current-ku u maraa only one direction waa inuu raaca hadduu hal direction u maro current-gaas wuxuu noqday direct current uu isu bedelay marka DC current wuxuu ka soo bilaaban doonaa dhinaca kan afarta diode-na current-ku uu marayaa laakiin laba waxay isula xigiin parallel isula yihiin labadan parallel isku ay laba parallel isku ah current-ku wuxuu forward yahay marka uu hore u socdaa dhinacan ka bilaabaya dhinacan waa diilinta gududan dhinaca socota falaarta gududan waxay tagaysaa current markuu forward u socdo wixii gudud oo dhan waa forward wixii madow oo dhanna waa backward la socdo marka dhankan current ka bilowday waxa uu ka wareegay waa forward diilinta gududan xagga u socota halka markay soo marayso geeska markay soo gaarto current-ga laba wada u furan inuu maro wada waa tan junction-na waa tan labada wadada tan ma mari karo B du maxay ku sameynaysaa ma mari karo
bida maxay mari weyday marka muxuu bida u mari waayay bida wuxuu u mari waayay oo diode-ka b u mari waayay diode-ka b waa reverse biased waa blocked dhinaca ma mari karo current waxa uu gudbi karo then current wuxuu maraya kana wuxuu yahay forward biased kan uu raacaya kan markuu raaco halka markuu marayo current-gu laba root baa u banaan root kan inuu gadaal ugu soo noqdo iyo inuu root ka hore raaco root kan gadaala diode baa ku xiran diode kan c wuxuu ku sameeyaa current-gu inuu dhinacan u soo noqdo diidaya oo broker ku sameyn doona current-gu dhinacan uu gudbi karaa oo socon karaa furaya dhinacan uu socday falaarta soo maaragtay falaarta guduudan dhinacan uu socotaa falaarta guduudan waa banaanka marka maraysa blue bay isu bedeshay marka blue isu bedeshay waxa weeye marka resistor-ka maraysa blue u bedelay marka direction-keeda xagga soo martay waa tan xagga soo laabatay waa tan xagga soo martay direction-keedu wuxuu yahay dhinacan uu socotaa down direction-keedu down buu wareegay dhinacana ka soo wareegtay banaanka waa kan direction-keedii waa kan xagga u socotaa current waxa uu socdaa waa forward dhinacan uu socdaa forward line-kaas ku maraya labada line is jaray kaas ku maraya waa forward halka markuu marayo wuxuu gaari doonaa laba diode laba wada u furmaysa labada wada u furmaya waxay noqon doonaa waa tan labada wada u furmaya kan inuu b hore u raaco iyo inuu a hore gadaal u soo raaco b hore inuu raaco kan waa forward biased kana waa forward biased labadu waa forward biased oo isku mid laakiin marka waxay ku kala duwan yihiin xagga kan hore inuu b xageeda uu gadaal ugu noqdo waa dhankii marka hore ka yimi marka current dhanku ka yimi kuma noqonayo wuxuu aadi doonaa maxaa weeye dhankan wali u dhiman circuit-ka dhankan wali u dhimay marka wuxuu soo mari doonaa falaarta guduudan waa tanaatan current halkan uu raacaya wali waa forward-kii diode markuu maro halkaas soo istaagay markuu halka marayo misana gadaal uma noqon karo root-kii oo c ma mari karo c ma marayo root-kii gadaal ugu noqon maaye halkan uu gadaal u maraya dhankan u maraya then wuxuu tagay another terminal dhinaca kale tagay current marka waa soo wareegay dhankaas wuxuu ahaa forward waxa ka soo wareejiyay maxaa weeye current-ga forward ka soo wareejiyay markuu forward ka soo wareegay misana current wuxuu sameeyaa masana raba inuu sameeyo backward waa alternate current iyo marna wuxuu sameeyaa forward then backward marka kaan hadda tusay wuxuu ahaa forward ku laba diode buu maray oo waxay ku ahaayeen forward biased d forward biased buu ku yahay waa ka falaartuna a na forward biased buu ku yahay labada kale laakiin ma marayo current-gu markuu misana backward uu noqdo reverse biased-kii waxa waa line-ka madow oo xagga gudaha xiga line-ka madow current-gu line-kan soo raacay halkan soo maraya halka markuu soo maro halkaas soo gaaraya markuu halkaas soo gaaro laba wada u furan wadada tan iyo wadada tan u furan wadadan waa diode A baa ku xiran diode waa reverse biased waa blocked ma mari karo current-gu laakiin kan wuxuu yahay forward biased kan uu maraya marka kan wuxuu yahay forward biased kan waa mari karaya current-gu kan maxaa sameyn karaa wuu mari karaa markuu kan maro oo diode C markuu marayo halkaas misal laba wada u furan markuu halkaas soo gaaro inuu d gadaal ugu noqdo iyo inuu sii raaco maxaa weeye line-kan kala sii raaco d gadaal kuma noqon karo diode-ka d baa celinaya xagga gadaal kuma noqon karo broker ku sameynaya current marka wuxuu socon doonaa xaggan hore u maraya waa kala diinintii madoweyd xagga u socotaa dhana kale u socotaa wali waa socotaa dhan waa tan gudaha weeye waa tan gudaha xagga u socotaa current-gu resistor-kii wuxuu ka noqday output-kii wuxuu ka noqday down kii horena wuxuu ka ahaa down same direction bay ka yeesheen only one direction bay leeyihiin follows in one direction in a resistor mar haddii one direction u mareen hadda wax noqon doona direct current ku noqon doona output ka soo baxa dhinacana kuna current ka soo wareegaya waa kan diilintii waa backward-kii wali backward-kii waa socda diilintii madow waa tan current waxa uu socda halka soo maray diilintan uu raacay line-ka markuu raaco halka markuu gaaro laba wada u furan waxa weeye inuu A raaco ama inuu B raaco labada mid u furan A ma raaci karo muxuu raaci waaye wuxuu raaci waaye waxa weeye current-ga halkan buu maraya de current-ga awal hore buu halkan soo maray marka ma raaci karo waxa u fudud inuu raaco maxaa weeye suu gadaal ugu noqdo meeshiisa hore gadaal ugu noqdo waa inuu raaco maxaa weeye diode B buu raacay diode B markuu raaco halkan uu tagay halka markuu tago laba wada u furan gadaal u noqon maayo wuxuu socon doonaa maxaa weeye booskiisa hore ku noqonaya waa kan diilintii kadibna wuxuu soo sameeyay backward halkaas ku soo noqday marka marna current-gu forward buu diilinta cas oo dhan waxay sheegaysaa inuu forward markuu soconayo markuu backward u soconayana waa diilinta madow laba resistor laba diode waxa mari doona kan forward-ka oo wuxuu maraya A labada parallel-ka iyo D iyo A
labada tan parallel-kana waxa mari doona B iyo C na waxa mari doona forward-ka oo B iyo C forward-ku waa qoranaya current-ku laakiin output-ku meesha ka soo baxaya waa resistor-kan wuxuu ka yahay current-ga ama ha ahaado kan waa forward-ki kana waa backward-ki labadu waxay ka yihiin maxaa weeye same direction bay ka leeyihiin mar haddii same direction leeyihiin output-ka soo bixi doona waa kan varying DC marka DC loo bedelay oo dhammaan maxaa la baabi'iyey waxa la baabi'iyey dhinaca muxuu ahaa backward-ki oo dhan waa baaba'ay current-ku muxuu wada yeeshay waa wada maximum dhinaca kale oo dhan waa la bedelay maxaa loo wada bedelay into maximum marka loo bedelo waxa la isticmaali doonaa without a capacitor baa la isticmaali doonaa oo charge storage-ki oo meesha tan marna uu yahay maximum-ka iyo meelaha uu minimum-ka yahay uu isdheekaysin doonaa charge storage waa kana ku xiran kadibna wuxuu ku samayn doonaa maxaa weeye smooth buu ka dhigi doonaa markii la mariyo maalkii current muxuu isu wada bedelay all current dhammaan wave-kii oo dhan wuxuu isu bedelay into waxa la yiraahdo DC current habkaas la isticmaalayo marka forward-ku laba resistor current-ku forward-ku ka imaan doona diilinta casba raacaysa diilinta casala kan maxay ka tahay dhinaca kale ma noqon karo kana broker-ku diiday maraysa xagan ka soo wareegaysa kana maraysa halkan maxay ka tahay banaanka kan maraysa in diilintu markaas banaanka maraysa banaanka dhaka maraysa down bay ka tahay xagan ka soo wareegtay banaanka waa tan maraysa waa diilinta cas waa forward-ki diilinta casala kan maraysa halkaas markay gaarto laba diode waa mid u furan yahay kan in raacdo in kan raacdo ka ma raacayso gadaal halkan current-gii ee ka yimid meeshu ka yimid weeye ku noqon mayso dhinaca ka soo wareegaysa ee bay maraysa marka D-na waa soo martay E-na waa forward biased marka yahay labadaas marka uu forward-ka yahay labaduba waa forward biased ana kala ku noqonaya current-ka misana wuxuu soo sameyn doonaa backward waa diilinta madow marka soo noqoto halkan ay raacaysa waxa marka forward biased oo ah C-da waa maraysa diode C E ma mari karto waa reverse biased C markay marto halkan ka wareegaysa D kuma noqon karto waa reverse biased halkan ka wareegaysa waa kan current-gii wuxuu ka noqday halkanna backward-kina wuxuu noqday output-ka resistor-ka uu ka noqday downward labada marka waa down iyo down waa same direction only flow in one direction buu maraya hal direction buu resistor-ka u wada maraya current-ku marka saas ku yahay maxaa weeye DC current halkan ka soo wareegay waa kan diilintiisa waa kan diilinta madow ka soo wareegtay waa backward halka ku soo noqon mayo ee gadaal u soo noqon mayo waa meesha hore uu ka yimid xagan uu maraya B buu maraya awal muxuu soo maray C haddana muxuu maraya B labadaas marka maxay yihiin waa forward biased markuu yahay backward-ka labadana maxay yihiin reverse biased markuu backward-ka yahay dan gadaal buu noqonaya halka ka soo wareegaya current-ka waa kan halka ku soo noqday marka wave-ka weynaa input-ka output-kiisa markii resistor-ka laga eego wuxuu noqon doonaa same direction waxa lagu sameeyay full wave rectification baa lagu sameeyay smoothness-kana waxa keenaya ku sameynaya waxa la isticmaali doonaa capacitor ama capacitance baa la isticmaali doonaa marka way waygaas wax la yiraahdaa full wave rectification